halkani waa Boronite waxay ku taalaa jasiiradda Bofnia ee koonfur bari ee Aasiya. Waa wadamada Islaamka ee aadka u qaniga ah, waxaana lagu tiriyaa inay ku jirto wadamada ugu yaryar ee caalamka. Waxaa la aasaasay qarnigii 7aad ee milaadiga. Boronite waxaa ka taliyay suldaan lagu magacaabo Suldaan Xasan Balqiya Mucaasaddiin Wacdallah, waana suldaankii 29aad ee soo mara Boronite. Dhaqaalahoogu wuxuu aad u soo sare kacay qarniyadii 8aad-yadii. Qasriga madaxtooyada ee laga taliyo dalkaasi waxaa lagu magacaabaa Astaanu Nuurul Iimaan. Waa goob aad u qurux badan, waxaanay ka kooban tahay 1788 qol. Sidoo kalena waxa ku yaala musqulo lagu qiyaaso 250 musqul oo qaarkood ay ka samaysan yihiin dahab. Goobaha baarkinada ee baabuurta lagu xareysto ee qasrigan ku yaala ayaa waxa lagu qiyaasaa inay qaado 110 gaari. Suldaan Xasan waxaa lagu tiriyaa shakhsiyaadka ugu caansan dunida. Sanadkii 2018 waxaa lagu qiyaasay inay lacagtiisu gaadhay 20 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. Sanadkii 2004 waxa uu aroos weyn qasriga ugu dhigay gabadhiisa oo lacag ahaan ku bixiyay 20 milyan. Saldanada Boronite waxaa ku yaala masaajidka ugu weyn qaaradda Aasiya, aadna ugu qurux badan oo la dhisay sanadkii 1958. Suldaan Xasan wuxuu amar ku bixiyay in dalka lagu xukumo diinta Islaamka, walow ay wadamo badani ka soo horjoosteen. Suldaan Xasan wuxuu leeyahay diyaarado aad u fara badan. Mid kamid ah diyaaradihiisa qayb kamid ah waxaa laga sameeyay dahab, dhanka kalena wuxuu leeyahay baabuur aad u tiro badan. Mararka qaar Suldaan Xasan waxaa lagu tilmaamaa in ay weelalkiisa ay wax ku cunaan ee laga helo qasriga madaxtooyadu ay ka samaysan yihiin dahab, maadaama ay tahay dhul aad ugu horeeya dhinaca wax soo saarka iyo dahabka ahna dalalka ugu qanisan qaaradda Aasiya. Boronite hore waxaa loogu yaqaanay magaca Buni, waxaanay ka tirsanayd dawladdii boqortooyada ee Silifigaaya, kadibna waxay ku biirtay imbaradoriyadii Manjabha, kadibna waxaa loo bixiyay magaca Boronite oo macnaheedu yahay badmaax. Boronite waxaa gumaystay dawladdii Ingiriiska, waxaanay dib xorriyadeedii u qaadatay 1984. Dagaalkii labaad ee dunida waxaa weerar ku soo qaaday dawladda Japan oo qabsaday dalka Boronite si ay ula wareegaan shidaalka faraha badan leh. Ay Boronite ku noqotay dawlad qaniya. Boronite waa shirkadaha ugu badan ee soo saara baabuurta. Waxaa laga helaa baabuurta ugu badan ee adduunka laga soo saaro. Isticmaalka khamriga iyo mukhaadaraadku waa ka mamnuuc dalka Boronite, maadaama oo Islaamku ay aad ugu badan yihiin. haddana waxaa jira dad ku dhex nool aan Islaam ahayn, iyadoo loo ogolaado marka ay shakhsi ahaan u cabayaan in ay soo iibsan karaan, laakiin hab ganacsi aan lagu soo galin karin dalkaasi. Waxyaabaha maandooriyaha dalkani wuxuu ku tallaabsaday horumar iyo qurux aad u ballaaran. Boronite waxaa laga helaa dhagaxa ugu weyn adduunka oo ka samaysan dahab, kaasi oo dalxiis loogu tago isla markaana la baaro dadka goobtaasi ku dalxiisaya. Boronite taariikhdeedu aad ayay u dheer tahay, lagumana soo koobi karo inta aynu soo qaadanay. Intaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa warbixinta gaarka aynu ku eegaynay dalka Boronite oo ah dalalka ugu qanisan uguna horumarka ballaaran ee ka mid ah dalalka Islaamka ee ka tirsan qaaradda Aasiya.